su-aasha koowaad, the following kuwaan soo socda are marks of mathematics student, describe the range. waxaan ka rabaa xogtaan haysanaa inaan soo saarno farqiga marka range inaan soo saarno ayaan ka rabaa. waxaa haysanaa 29 54 64 74. range marka maxaa lagu helaa? range waxaa lagu helaa dheena range waxaa la mid yahay asaga large number hadena large number isku soo gaabi oo laga jaray smallest, largest, smallest one. small marka smallest yaa dheera kan ugu weyn oo laga jaray kan ugu yar ay range loo helaa. yaa ugu weyn? waxaa ugu weyn 74 waxaa ka jaraynaa yaa u yar 29 inta aan kala jarno maxay noo noqon doontaa 5. halkaana maxay noqon doontaa 4. marka ranjiga maxaa soo baxay 45 waa ranjiga waa 45. kan ugu weyn numberka ugu weyn waxaa ka jari doontaa numberka ugu yar. waxaa u gudbaynaa marka su-aasha ku xigta ee labaad, number 2 ayaa fiirinayna. number 2 determine waxaa go'aamisaa meanka lagaa rabaa, variance lagaa rabaa, standard deviation lagaa rabaa of the temperature reading. akhrintan haysataa ee hoose waxaa haysanaa 15 degree 16 degree 17 degree 18 degree 19 degree 20 degree 22 degree 24 degree ama centigrade ayaa haysanaa temperature lagu halbeegayo lagu cabirayo. marka aan fiirino waxaan dhehnaa marka hore waa soo qaadanay intiina la siiyey. marka hore waxaa soo saaraynaa meanka soo saaraynaa. meanka maxaa loo helaa? x barka wuxuu la mid yahay summation of x inta haysto isku soo dadadar kadibna waxaa u qaybinaysaa numberka intay yihiin u qaybinaysaa. waa kana 15 lagu daray 16 lagu daray 17 lagu daray 18 lagu daray 19 lagu daray 20 22 lagu daray 24. waxaa u qaybinaynaa meeqa waxa waa meeqa jeer waa numberska waa 8. inta kor isku soo dar waa 151 loo qaybiyo 8. marka meanka maxaa soo bixi doona 18.9 ayaa soo bixi doonta. 18.9 ayaa soo bixi doonta. meanka waa soo helnay. kadibna x ka haysanay ama temperature ka haysanay waxaa ka dhignay vertical ka dhignay waa joog ka dhignay 15 16 17 18 19 20 24. marka meanka iyo waxaa kala jaraynaa x ka 15 ah waxaa ka jaraynaa meanka soo helnay 18.9. 16 waxaa ka jaraynaa 18.9. 17 waxaa ka jaraynaa 18.9. mar walba marka x kan waxaa ka jaraynaa meanka soo helnaa ka jaraynaa kadibna resultkiina soo baxay. resultka marka soo baxay kadib maxaa sameynaa resultkii soo baxay oo x ki iyo meanka marka kala jirnay waxaa ku sameynaynaa square saaraynaa. inta soo baxday 2 jeer isku dhufo kadibna waxaa ka soo baxay marka resultkiina soo baxay. tusaale -3 haddii aan 3.875 2 jeer isku dhufana waxaa ka soo bixi doona 15.01562 ka soo bixi doonta. marka mid walba sidaas sameynaysaa, mid walba sidaa isku wargareynaa. kadibna isku soo dar total samee, summation ka samee oo ah x oo laga jira x oo meanka square ka soo summation ku samee soo dar maxaa soo bixi doona 64.875 soo bixi doonta. 64.875 ayaa soo bixi doonta. variance marka variance-ga oo s square loo qaataa waxay la mid tahay inta soo helnay 64.875 u qayb numberku yahay oo numberkii dhamaan oo lahaa 8. marka waxa soo baxay
sideed dhibic boqol iyo sagaal ka soo baxday waa kaas maxaa waaye waa standard variance waa ama variance waa standard deviation ka soo saarna marka waxay tahay waxa loo helaa asaga waxa loo helaa summation of x laga jira x bar oo square ah xeyd ka saaraysa marka waxa qoynaysa 8 ama inta ku soo baxday 64.875 root geli number ku yahay u qayb ama variance oo xeyd laga saaro waay marka inta xeyd ka saar waa 2.85 waa marka 2.85 ayaa noo noqonaysaa qaybta kala fiirinayna marka aad u mahadsantiin each of the following kuwan soo socda mid walba kamid ah fududay numberka a hadaan ku hormarno a waxaan haysanaa I ku jibaaran 3 ayaan haysanaa marka simplify ku sameeyna maxay noqonaysaa marka maadaama ay tahay I ku jibaaran 3 waxaanayna maxaa qori karnaa waxaan ka imaadaa dhigi karnaa I oo square ah lagu dhuftay I marka I square waxaan qaadanaynaa -1 aan ku bedelanaynaa I square oo lagu dhuftay I I -1 ku dhufo marka waxay noqon doontaa -I ayay noqon doontaa numberka ku xiga 7 aan fiirino oo ah b asna waxaa haysanaa intaan waa a aan dhahnay a waa b na waxaa haysanaa I ku jibaaran 7 waxaa dhigi karnaa marka meeqa I square ay noqon kartaa I square lagu dhuftay I square kale lagu dhuftay I square oo lagu dhuftay I marka I macnaa powers isku dar labadan powers isku dar 4 2 ku dar 6 halkan ku dar waa 7 marka I square kan maxaa noqon doonaa -1 oo noqon doonaa ay lagu dhuftay -1 kale ay waxa ku sii dhufan doonaa hadana -1 kale ku sii dhufan doonaa -1 ugu dambeyn waxa ku dhufan doonaa I -1 plus 1 waaye -1 kale -1 asagana waxa ka soo bixi doona marka -I ayaa ka soo bixi doonta -I ayaa noqon doonaa marka simplify marka ku sameeyno labadaba waxa soo bixi doono -I ayaa soo bixi doonta waxaan u gudbaynaa qaybta kale ku xigta su'aasha labaad add the following complex number kan isku dar waxaa haysanaa marka z1 waxaa haysanaa 7 plus 5i z2 waxaa haysanaa -1 plus 0i marka isku darayna waxaa sameynaynaa real number aan ku daraynaa real number kiya waa z1 waa 7 waxaa dhaynaa marka 7 waxaa ku daraynaa plus -1 7 waxaa ku daraynaa -1 ay sidoo kale 5i waxaa ku daraynaa isne plus 0i 7 iyo waxaa isku dartaa -1 waa kala jarmi doonaan waa 6 waxaana noqon doonaa marka 7 haddaan ku darno -1 wuu ka jarmi doonaa waa 6 aye 5i iyo 0i na isku dar 5i waa 5i marka numberka labaad maxaa ka soo bixi doona markaa isku darno complex numberkan 7 ku dar oo minus ku dar waa ka jarmi doonaa waa 6 5i na 0 ku dar waa 5i la waa marka waxaa u gudbaynaa numberka ku xiga saddexaad ayaa u gudbaynaa number 3 ama question 3 right waxaa qortaa 1 plus 3i oo loo qeybiyay 4 minus i in terms of a plus b ayaa qoraynaa
ay marka hore maxaa haysanaa 1 plus 3i 1 plus 3i 1 plus 3i waxaa u qaybinaynaa marka 1 plus 3i waxaa u qaybinaynaa 4 minus i equation ka haysana waay kor iyo hoosba waxaa ku dhufan doonaa conjugate waxa la yiraahdo kor waxaa ku dhufan doonaa 4 plus i hoose cagsigiisa ku dhufanay mar kor iyo hoosba loo qaybiyay 4 plus i 4 plus i ayaa ku dhufanayna sin 1 kan 4 ku dhufan maxaa noqon doonaa xalimtaan dhahno 1 soo qaad 4 ku dhufo waa 4 1 soo qaad dadane i ku dhufo maxaa noqon doonaa 1 kala muujinayo i bis aan qoraynaa i 3i soo qaad 4 ku dhufo seena 3 4 isku dhufo meeqa waay waa 2 alif waay 2 alif I 2 alif I 3 waxaa isku dhufanaynaa I 3i I ku dhufo 3 I isku dhufo I square intaa waxaa u qaybinaynaa 4 iyo 4 isku dhufo 16 4 soo qaad haddana plus I ku dhufo waa plus 4i aye 4 ada minus I ku dhufo 4 maxay noqonaya minus 4i ayaa noqonaya I iyo I isku dhufo maxay noqon horta plus iyo minus isku dhufo waa minus plus iyo minus markaa isku dhufano waxay noqonaysaa minus I ku dhufane waa I square ayaa noqonaysaa marka I ku dhufo I square ay qaybta kore 4 iyo waxaa isku darsamaya halkaa maxaa ku haysanaa 4 plus I plus 2 alif I plus 3i square qaybta kore marka soo qaad qaybta kore waxaa soo qaadaynaa 4 soo qaad 4 aye plus idas iyo 2 alif I isku dar waa 13i 13i plus 3 soo qaad I square bedel maxaa ku bedelaynaa minus 1 intaas waxaa u qaybinaynaa 16 soo qaad 16 soo qaad haye plus 4i iyo minus 4i maxaa ku dhici doona waa kala jarmaya isla bixitaan maxaa soo haray minus I square na muxuu taagan yahay minus 1 I square minus soo qaad marka hore I square maxaa waaye minus 1 uu taagan yahay I square waxaa la mid tahay marka qaybta kore maxaa kasoo baxaya qaybta kore waxaa kasoo bixi doona 4 plus 13 ama 13i 13i minus I oo 3i ah minus 3i minus 1 waxaa isku dhici doona iyo 3 isku dhici doona marka minus 3i intaa u qaybi 16 aye minus 1 isku dhufo plus 1 marka qaybta kore maxaa kasoo bixi doonto qaybta kore minus 3gan iyo 4kan wuu kala jarmi doonaa waa 1 plus 13i 1 plus 13i ama 13i 1 plus
1 plus 13i waan qeybinaynaa isku dar labadan 17 halka waa ku dii kartaa ama sii wadi kartaa waxa dhigi kartaa hal loo qeybay 17 lagu daray 13 loo qeybay 17 oo ku dhacsan i waa dhigi kartaa markaa inta uu gudbinaa su'aasha ku xigta ee saddexaad waxa uu gudbinaa marka baartii kale ayaan fiirinayna marka su'aasha saddexaad waa sida su'aasha ku xigta afraad su'aasha afraad ayaa u gudbinaa marka su'aasha afraad marka waxaa lagu weydiiyey waa probability waa if you were a roll the die haddii aad turtid dadu one time hal mar aad turtay what is the probability waa maxay ihtimaalka of it is landing on two probability lagu helayo numberka labo ama duwe waa maxay dadu marka muxuu ka kooban yahay dadu wuxuu ka kooban yahay hal labo saddex afar shan iyo lix dadu inta ka kooban yahay intaas number kale ma sugay waa may haye dadugan marka maadaama hal mar la tuuraayo oo one time uu yahay meeqa jeer laba la heli karaa hal jeer waa waxa dhisaa marka hal loo qeybay sample oo ah 6 sample oo ah 6 marka probability oo ku imaan karo labo waa hal loos dhigay 6 waa marka hal loos dhigay 6 ayay noqonaysaa waxaan fiirinaynaa marka su'aasha kale u dambeysa aan fiirino su'aasha kale u dambeysa aan fiirino oo soo gagabeynayna in a class fasal there are 12 boys waxa dhigta marka fasalka 12 wiil and 16 girls iyo 16 gabdhood ayaa dhigta one of them is called out using mid kamid ah loo marka student registration ama registerka numberka marka oo registerka ah what is the probability waa maxay ihtimaalka that the one called is a girl probability-ga qofka la wacay ku dhaqan karta gabar waa maxay marka maxaa haysanaa number of girls haysanaa number of girls marka maxaa noqonaa 16 waay wax soo saarayna sidoo kale waxaa haysanaa number of boys asagana waxaa waay 12 waay 12 outcome ka soo saarna marka sample-ka meeqa waa 16 oo lagu daray 12 maxaa la mid tahay 28 probability waxa lagu weydiiyay gabar lagu wici karo gabdhaha marka meeqa waa 16 waxaa qeynaysaa 28 outcome guud ahaan gabdhaha iyo wiilasha marka la isku daro waa 28 waa 28 waa sii yareynayna 16 waxaa u qeybisaa 4 waa 4 16 4 u qeybi 4 28 4 u qeybi 7 marka probability lagu wici karo gabar waa 4 loos dhigay 7 waay 4 loos dhigay 7 waxay noqonaysaa probability lagu wici karo gabar ayay noqonaysaa haddii in case ay dhacdo in lagu weydiiyo wiilashana waxaa dhihinaa probability-ga boys-ka marka lagu wici karo waxaa dhihinaa probability-ga boys-ka oo lagu wici karo asagana waxay noqonee haddii lagu weydiiyo lacala oo su'aasha la soo in la gediyo noqon kartaa marka 12 boys
waxaa u qaybinaysaa outcome-kii oo ah 28 sii yare inta waxaa u qaybisaa marka 2 u qaybi ama 4 u qaybi xitaa 12 4 u qaybi waa 3 28 4 u qaybi waa 7 probability-ga noqon kara marka wiilashana waxaa noqon karaa haddii wiil la wici lahaa 3 loo dhigay 7 laakiin hadda waxaan la weydiiyay waxa waaye probability gabar lagu wici karo waaye midkaan aan qaadanaynaa oo 4 loo dhigay 20 4 loo dhigay 7 waa probability gabar lagu wici karo aad u mahadsantihiin hadda channelka cusub tahay waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe saartid like muuqaalkan la garee si asxaab badan u gaaro share garee waa mahadsantihiin aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh